kusoo dhawaada video kamida videoskii aan uga hadlaynay abuurada basasha. Videogan ku horeeyay waxaan uga hadalnay sida abuurka basasha loo soo saaro. Laakiin dabcan waxaan ognahay beeraleyda Soomaaliyeed hadda intooda badan inaysan diyaar u ahayn in abuurka ay ka soo saaraan wadanka ka bacdina ay isticmaalaan shirkado waaweyn oo Soomaaliya wadanka ka soo saartaana intaan aniga ogahay ma jirto. Marka sidaas darteed videogan waxaan uga hadlaynaa inaan idin sheegno abuurada ama basasha kala duwan ee laga soo saaro wadamada bariga Afrika sida Ethiopia iyo Kenya oo kale iyo Uganda si aan idin tuso tayada iyo waxyaabaha ay ku fiican yihiin basasha ay haystaan wadamadaas. sidaas darteedna ay beeraleyda Soomaaliyeed ay uga soo iibsadaan oo ayaguna ay wadankooda ugu abuuraan. basashan marka ma ahan badana hybrid ma ahan, waa basal oo hadhow seedkeeda la save garay karo hadii la awoodo oo si fiican loo soo saari karo. marka waliba waxaan awood saaraynaa tayooyinka ay leeyihiin khaas ahaan dhinaca kaydinta. maxaa yeelay kaydintu aad ayay muhiim ugu tahay beeraleyda Soomaaliyeed oo waxaa jira mararka qaar inay soo saaraan basashii suuqii markaas hadday isku socodsoon inay hore ka halaabayso. marka fadlan ka faa'iideyso. السلام عليكم. كسر هذا الفيديو كل دي على سفام صومالي ومطلق لني إني كيف يستان ولا لها صوماليات مجرجوا على باشي. فضلا ندي أكو عصب تاع كنالك سبسكرايب ده بالك أنا تابو سيسا كودا في الفيديو كستان سوجد بينه. فضلا سيدو كل وجد بي ولو ذاك ولا لها كل صوماليات سيبقى في يستان وضد بدن يوجرته وما سنتين. سيدا شاكنا فيديو كان وحنا واحد لنا نوعية بصشة لقى أبوره بريق أفريقيا أنه سوي حجرنا كيدين تودا iyo siday ugu fiican yihiin ugu kala fiican yihiin wax ka soo qaadanayna iyo tayooyinkooda kale iyo calaamadaha kale oo lagu yaqaano. kaydintu marka Soomaaliya oo kale wadamada aan haysan qaboojiyaasha oo cuntooyinkii qudaarihii lagu kaydin karo aad ayay muhiim ugu tahay inaan helno basal xilli fiican oo macquul ah aan hayn karno. marka basaluhu waa kala duwan yihiin, qaab kala duwan leeyihiin. mararka qaar qofka hadii uu isku daro oo midda kaydka ku fiican iyo midda hore laga soo codsiinayo markaas oo kale ayaduna waa fikrad fiican. maxaa yeelay markasta ma haysatid suuq diyaar ku ah oo wixii aad soo saarto dhan hore ka socodsiinaya. marka hadii aan si guud uga hadalno horta abuurka laba nooc ayaa loo kala saaraa, mid la yiraahdo heirloom iyo mid la yiraahdo hybrid. hybridka marka waa isagoo waxa la cross gareynayaa laba geed oo isku mid ah sida yaanyada oo kale ama basasha oo kale oo kala duwan ayaa la is cross gareynayaa ka bacdi ayaa markaas waxa la soo saarayaa geed wax soo saar fiican leh oo mararka qaar heirloomka xataa ka soo wax soo saar badan. laakiin dabcan shaqo badan iyo hawl badan ayay kabaniyaashu ku bixiyaan taas. sidaas darteed mirahaas waa ka qaalisan yihiin kuwa heirloomka ah. kuwa heirloomka waa marka waa geedo oo sideeda isaga soo bixi jiray xilligaas dheer ka hor oo ka bacdi generation ay soo baxeen miro kala duwan. marka wax ugu weyn oo heirloomka iyo hybridka ay kala duwan yihiin waxa weeye in markii aad abuurto heirloomka badanaa in isku wax soo saar, isku midab, isku dhadhan inta badan ay yihiin. laakiin midka hybridka hadad ka reebato mirihi hadad ka reebato waxaa laga yaabaa inuusan kii aad ka reebatay miraha aysan u ekaan ama aysan isku si u dhadhamin ama wax soo saarkoodu aysan isku mid noqon. marka labadaas saas ayay kala duwan yihiin. marka videogan marka waxaan uga hadlaynaa oo awood aan ku saaraynaa rabnaa inaan uga hadalno waa kuwa heirloomka ah oo basasha ah oo dunyada dhan meelo fara badan oo aan isku cimilanahay laga helo. dabcan way jiraan kuwo oo aan heirloom ahayn oo hybrid ah oo aad u tayo badan oo wadamada Afrikaanka laga helo oo tayo fiican leh sida Kenya oo kale iyo laga helo oo tayo fiican leh. laakiin mararka qaar mana save garay kartid. hadda save garaysana sidii ay rabtay inay noqon laga yaabaa. waxa kale waana ka qaalisan yihiin dabcan oo seedka markaa soo gadanaysid waa ka sii qaalisan yihiin. inkastoo walaalo Soomaaliyeed message isoo qorayna ay lahaayeen aad ay qaali u tahay miraha wadanka yaala ee basasha. horta sida qof kasta uu og yahay adduunyada waa kala duwan tahay. tropicska iyo temperate zoneka ayaa ugu muhiimsan ee bini'aadamku ay ku nool yihiin. marka temperate zoneka waa wadamada aad ka aragtid maapka waa qiyaas exactly sidaan ma ahan. tropicskuna waa wadamada ay Soomaaliya iyo Afrika inteeda badan ay ku jirto cimilo ahaanna ka duwan temperate-ka. horena aan uga soo hadalnay in basasha lagu abuuraa wadamadaas temperate-ka iyo wadamada tropicska ay kala duwan yihiin oo isku nooc ahayn. dabcan basasha lagu abuurayaana waa kala duwan tahay.
sida laakiin caadiga oo la yaqaano basasha lagu abuuro wadamada temperate-ka ah waa midda loo yaqaano long day. Long day-gaasna waxay uga fiican tahay midda short day-ga ah haddii la yiraahdo hala dhigto meel aad ayay uga fiican tahay midda short day-ga ah oo waqti dheer ayaa la dhigi karaa midda laga soo saaro oo long day-ga oo laga soo saaro wadamadan oo temperate-ka ah waqti dheer ayay ooli kartaa mararka qaar xataa sanad ayay taallaa iyadoon waxba aysan ka ba'in inkastoo cimil ahaanna ay ka qabowdahay temperate-ka uu ka qabow yahay wadamadaas oo tropics-ka ah. basasha oo wadamadeena oo kale lagu abuuraa ma noqon karto midda wadamada hadda Yurub oo kale camal lagu abuuro ma noqonayso oo aragto banaanka iska taalo waqti dheer iska taalo dadka inta soo qaataan ay iska dhigtaan xilli dheer oo aan halaabin maxaa yeelay labada basal ayaa kala duwan iyo qaabka loo maamulay mararka qaar laakiin inta badan waxa xukumaya waa cimilada lagu abuuray iyo nooca ay tahay laakiin midda short day-ga la yiraahdo oo wadamada tropics-ka lagu abuuraa isku mid ma ahan oo iyada lafteedu way kala duwan tahay way kala fiican tahay qaar ayaa waqti dheer in la dhigo meel la awoodaa qaarna kuma fiicna marka waxaan raadinayay isku barbardhig basasha oo short day-ga la yiraahdo oo wadamada Afrikaanka ama wadamada tropics-ka lagu abuuro ayaan baaritaan sameynayay ma sahlana marka in la helo warbixino fiican oo la isku halayn karo oo la isku barbardhigayo basashaas kala duwan laakiin intii aan helay insha Allah tacaala ayaan soo gudbinayaa laba mid ma ahan basalada lagu abuuro wadamadan Yurub oo kale camal oo warbixintooda iyo waxyaabaha isku barbardhiga lagu sameeyay aad u badan tahay marka dhibaatadan haysata hadan Soomaalina oo kale camal organizations institutions oo maaragtay baaritaan fiican sameynaya wadankii oo beeraleyda u soo gudbinaya baaritaankoodii waa ku yar yihiin ama ma jiraan marka taas waxay ku qasbaysaa qofkii beeraleyda ahaa inuu isagu noqdo qofkii beertiisa wax ku abuurayay baariyay oo maaragtay markii aad soo gadato noocyada kala duwan ama kuwan hadda aan maanta ka hadlayna ha noqoto ama kuwa kale ah haysta ha noqoto waa inaad tijaabooyin samaysaa si aad u ogaatid midda fiican hadday noqoto kaydka hadday noqoto wax soo saarka hadday noqoto cudurrada wixii oo dhan waa inaad adiga baartaa oo isku hubisaa midda ugu fiican tusaale ahaan kaydkeeda haddaad rabto inaad ogaatid waa inaad si dhowr nooc oo kala duwan inta abuurto aad meel ku kaydisaa oo room temperature oo kale camal oo habaysan oo qaabka loogu talagalay ah ka bacdi aad aragtaa markaas wixii kuu soo baxa midda fiican si aad maaragtay hadhow berri hadday noqoto inaad suuq u helin aad mid fiican oo aad meel dhigi kartid aad u heshid marka waxyaabo waxaa jira marka calaamado kale oo lagu yaqaano basasha tayada leh dhinaca markay noqoto kaydinta ama meel dhigashada calaamado lagu yaqaano ayaa jira calaamadahaas waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo mid ah mile ayaa jirta iyo mid burgeant ayaa jirta oo laga wado midda aad aragtay oo markii aad jarto indhaha ay biyo ka imaanayaan waxa ku badan sulfurska compound sulfurska la yiraahdo ayaa ku badan taas darteed marka waxay keenaysaa in indhahaga ay biyo ka yimaadaan marka sida caadiga inta badan basasha xilliga fiican la haysan karo waa basalaha aadka u kulul oo markii la jaro indhahaga biyaha ka keenaya kuwaas way kuwa aadka u adag saas ayay baaritaamada qaar muujinayaan marka waxyaabaha lagu doorto ayay ka mid tahay marka basasha haddii ay tahay basal aad u kulul kaydka way uga fiican tahay midda aadka u jilicsan oo aan lahayn kulaylka saa'idka laakiin basasha oo maalka ah oo qafiifka ah oo aan lahayn kulaylka saa'idka markay noqoto indhaho kale markii la dilaaciyo taas oo kale xataa haddii xaaladeeda aad si fiican ugu dadaasho oo u habayso intooda badan way fiican tahay in la cuno laakiin kayd fiican ma galaan burgeant onionkaas marka iyaka waqti badan ayaa la hay karaa sida aan sheegay intooda badan waxa lagu yaqaanaa size ahaan waa yar yihiin kuwa aadka u waaweyn maahan xataa maaragtay ringiga ay leeyihiin basashu aad ayay u yar tahay jirkooduna waa isku dhow yahay aad ayay maaragtay qaybaha u dhaxeeya ciriiri isugu tahay marka noocaas ayaa ka mid ah calaamadaha lagu yaqaano basalaha waqtiga dheer lahayn karo baaritaamo kalena way muujinayaan sidaas oo kale size-ka yar ama yaraanta inay keenayso in waqti dheer la hayo oo baaritaamada qaar ayaa baaritaan aan fiiriyay ayaa wuxuu muujinayay in maaragtay ay dhalato basashii oo wax la yiraahdo sprout ay samayso ama ay urto waxay ku xiran tahay sida ay size-ka ama bulb uu kala weyn yahay ay ku xiran tahay damo uu weyn yahay ay maaragtay ku halaabayso markii meel la dhigo mid kale xataa waxay muujisay in miisaankeeduna sidoo kale uu hoos u dhacayo oo haddii ay weyn tahay markii meel la dhigo biyaha ka baxaya oo ka qasaaraya way ka badan tahay midda ka yar marka haddii aad awoodid waxaa la sameeyaa oo aad midii yareed iyo midii weyneed aad haysatid midda weyn ayaa marka hore la iibiyaa haddii ay kugu qasban tahay
inaad basasha qaar reebato markii aad soo gurato midda weyn ayaa la socodsiiyaa badanaa adduunyada waaba la kala soocaaba midda weyn midda yar iyo midda dhexdhexaadka waa la kala soocaa si gooniya loo kala iibiyaa marka haddii aad awoodid waqti ahaan waa la kala soocaa maadaama ay intooda badan baaritaamo badan ay muujinayaan in si aysan u halaabin midda yar iyo midda weyn haddii aan marka u galno qaar ka tirsan basasha oo bariga Afrika lagu abuuro waxaa ka mid ah red creole Bombay red mid la yiraahdo Adamo red Texas grano iyo red Pinoy marka insha Allah qaybaha soo socda waxaan uga hadlaynaa waxyaabaha lagu kala yaqaano kuwan ay kala duwan yihiin ayaan ka hadlaynaa iyo waxyaabaha ay ku kala fiican yihiin insha Allah laakiin inta aanan ka hadlin taas dabcan waa fahmi kartaa maadaama basasha 85% boqolkiiba 90 ay biyo tahay inta kalena ay dry matter tahay haddii meel la dhigo sidaas darteed biyihii saas ayay ku baxayaan marka taas ayaa keenaysa waxyaabaha oo halowga u keenaya markii laga reebo cudurrada iyo waxyaabaha kale oo ku dhacaya markii laga reebo taasna marka waxay ku xiran tahay oo basalaha kala duwan waxay leeyihiin temperature ama heerkul ku fiican qaar eber ilaa 5 in lagu hayo ayaa ku fiican qaar xataa ilaa 25 Celsius waa u dulqaadan karaan waxa loo yaqaan room temperature-ka waa u dulqaadan karaan marka insha Allah sidaas darteed ayaan videoga marka waxaan uga hadlaynaa basalahaas kala duwan kaydkooda uu muhiimka u yahay maadaama aadan haysan 0 iyo 5 Celsius aadan gelin karin waa inaad ogaataa markii room temperature la dhigo inta la hayn karo basashaas oo haddii aad seed soo iibsanaysid haddii ku qoran tahay ama qofka iibinaya aad weydiin kartid aad ay muhiim u tahay marka sida hore u soo taabanana ciladaha ugu daran ee markii meel la dhigo waa cudurka ku dhacaya iyo sprouting waxa la yiraahdo oo sida hadda sawirka ka aragtid in uu basashii ay soo dhalato iyadoo kaydkii ay taala labadaasba waa dhibaatooyin aad waaweyn laakiin waxay ku xiran tahay qofka meesha uu dhigo cimilada lagu hayo ay ku xiran tahay marna cudurka ayaa daran marna soo bixitaanka ayaa daran marka waxyaabaha oo basasha waanaga sheegnay biyihii inay ka baxayaan oo taas ka baxsan oo ku dhacaya waxaa ka mid ah sida aad maaragtay heerkulka aad dhigto ama waxa loo yaqaan relative humidity-ga ama biyaha hawada ku jira sida saacada ka aragtid meesha ka muuqato kala camal percentage kala duwan ay leeyihiin qaabka aad u soo jarto basashaas saameyn ayay ku yeelanaysaa sidoo kale iftiinka boqol iftiinaha dhigtay mise qol mugdi ah dhigtay waxaa la rabaa badanaa in la dhigo meel mugdi ah oo laakiin aariya soo galayso oo aan bac lagu xirayn ayaa la rabaa in la dhigo oo cool ah marka taasna way saameynaysaa sidoo kale basashii xilligii ay gaartay majority haddii aad ku daahayso meeshii ama xilli early aad jarto ama xilli hore aad jarto waxay saameyn ku yeelanaysaa kaydinteedii ayay saameyn ku yeelanaysaa marka waxaasoo dhan waa inay isku aadisaa si ay u yeelato haddii lagu yiraahdo 6 bilood basashaan la dhigi karaa meel room temperature-ka laakiin adiga kaartooyinkii ku fiicnaa aadan soo raacin dabcan 6 bilood waxa ma noqonayso ma tarayso 6 bilood ma gaarayso marka waxyaabahan ayaa saameyn kugu yeelanaya inta aan la gaarin basasha genetic ahaan inta ay u qalanto in la hayn karo marka waa inaad kuwan ka fikirtaa kabacdi ayaa geneticii iyo wixii ay ku fiicneed ayaa heli kartaa marka midda koowaad oon ka hadlayno waxaa la yiraahdaa Bombay red oo waxaa lagu abuuraa wadamo badan sawirka hadda aad aragtay ma ahan ayadii oo sawirro aan internet ka soo qaato oo maaragtay free ah oo si sahlan lagu soo qaadan karo weeye laakiin hadda internet ka fiiriso sawiradeeda waa ku arki kartaa marka midabkeedu waa guduud wax soo saarkeeda ay soo saarta miraha ay soo saartaana waa dhexdhexaad laakiin sidoo kale waxay leedahay banjantigii anyonkii weeye oo anyonkii indhaha kaa gelaysa noocaas weeye bisaylkeedu waa 120 ilaa 140 maalmood ayuu u dhexeeyaa marka Kenya iyo Ethiopia iyo wadamadaas oo kale waa lagu abuuraa iyo wadamo badan oo adduunyada ka mid ah aad ayaa loogu abuuraa marka abuurkeedana waa laga helaa Kenya oo kale si fiican ayaa looga helaa haddii dabcan walaalo Soomaaliyeed ay wadanka keeneen iyadoo tayalana waa ka iibsan kartaa dhibaato ma laha taas saas ayaaba fiicanba laakiin iyadu waxay ku fiican tahay in la waraabiyo xilliga iyadu ay soo bislaa rabto roobku inuu soo gaaro kuma fiicna cudurro ayaa ku dhasha marka kuma fiicna roobka inuu ku yimaado xilliga ay dhamaadka tahay qaarkood oo u yara dulqaadan karaan laakiin iyadu aad ayay ugu liidataa dhinacaas wax soo saar ahaankeedana aad ayuu u fiican yahay 30 ilaa 35 tan ayaa halkii hektar laga soo saari karaa si oo maaragtay haddii la sameeyo wax kasta oo ku habboona dabcan kuwa baaritaan hadda ku sameeyo kale Uganda oo kale 4 ilaa 5 tan ayaa ku ugu qatarsan ay soo saaraan marka intaas ku qorato laakiin dadka intaas soo saari karaa aad ay u yar yihiin maxaa yeelay intii la isku jirsiinay cudurradii nafaqadii biyihii waxaasoo dhan in si qatar loo habeeyo ayaa la rabaa
si loo gaaro intaas. Kaydintana way ku fiican tahay. Waxyaabo badan ayaa laga qoray basashan. Article aan arkay oo kale waxaa ka mid ah oo isku barbardhigayay Uganda oo kale, Bombay Red, Red Creole iyo Texas Grano iyo kuwo kale ayay isku barbardhigayeen si u fiiriyaan wax soo saarkooda iyo kaydintooda si u kala fiican yihiin. Marka waxay sameeyeen room temperature oo 25 Celsius ah minus plus ayay ku hayeen, kabacdi 112 maalin ayay meeshaas ku hayeen si u ogaadaan. Weliba dhinaca waxa ay ka study gareynayeen oo ah sproutingka sida sawirka ka aragtid ayay fiirinayeen saamaynta ay ku yeelato. Marka kuwa ay tijaabiyeen oo ay ka mid tahay Bombay Red 42 maalin mid kasta oo ka mid ayaka si fiican ayay u taala meeshii room temperature-kii oo maaragtay sprouting iyo midna maysa samayn. Article-kan hadaad akhri kartaa waxyaabo kale oo uga hadlayeen waxaa ka mid ah wax soo saarkooda kala duwan iyo inta ay yield ay soo saareen. Marka taas waxay ku tusinaysaa inay kayd fiican ay leedahay basashan oo ugu yaraan 42 maalin ah. Midda kale waxaa la yiraahdaa Red Creole oo sidoo kale iyaduna waa nooca indhaha ilinta ka keena oo midabkeeduna guduudka yahay. Kenya iyo Ethiopia iyo wadamo kale oo sida California oo la yiraahdo way ka soo jeedaa waa lagu abuuraa oo cimilo ahaan aan isleenahay xaggana waa lagu abuuraa. Abuurkeedana Kenya iyo waa laga helaa meelahaas. Wax soo saarkeeduna aad ayuu u fiican yahay dabcan haddii aan gaari karno 30 ilaa iyo 35 hektar halkii tan. Basashan marka waxaa lagu yaqaanaa awoodeeda kaydinta aad ayaa loo amaalaa meelo badan oo adduunyada ka mid ah oo waxaa la yiraahdaa 2 bilood ilaa 6 bilood xitaa room temperature waa lagu hayn karaa. Marka basashan oo kale aad ayay ugu fiican tahay Soomaaliya oo xilli dheer ayaa la hayn karaa haddii qaabkii kale oo ka hadlayay la sameeyo waqti dheer ayaa la hayn karaa. Midan waxaa la yiraahdaa Texas Grano oo sawirkan ma ahan dabcan sidaan hore u sheegaba laakiin waa basal waaweyn oo kuwii hore oo kale ka waaweyn. Wax soo saarkeeda haddii la yiraahdo inta tan ay soo saartana aad ayuu u weyn yahay. Laakiin basashan waxay ku fiican tahay sidoo kale inay si dhaqso ah ay diyaar ku noqoto oo 120 maalmood oo kale camal ah. Kenya oo kale aad ayaa loogu abuuraa iyo wadamo badan oo tropics-ka ah. Dabcan sidoo kalena siirkeeda waa laga helaa. Wax soo saarkeeda wax aadka u badiya oo khatarta ka sii dhigana waxa weeye maadaama ay maaragtay mirta ay soo saaraysa uu waaweyn yahay inta tan ay soo saari kartaana aad ayuu u weyn yahay haddii si fiican dabcan loo maamulo. Waxay leedahay waa mile waa nooca mile-ka oo khafiifka ah oo markii la jaro aan nooca indhaha biyaha ka keena aan ahayn weeye. Sidaas darteed waxyaabaha loo isticmaalo kale waxaa ka mid ah salaadiyada oo kale inay ku fiican tahay. Laakiin basashan waxay ku liidataa dhinaca kaydinta oo kayd fiican ma lahan oo qofku haddii uu isku daro midda kaydka fiican leh iyo midaan oo kale oo kaydkeedu aad u badnayn markaas oo kale suuqii wuu ka faa'iideysan karaa. Baaritaan oo Taiwan oo kale oo lagu sameeyay oo basalo kala duwan la isku barbardhigayo kale markii la fiiriyay ayaa waxay muujinaysaa sidoo kale meelo badan oo ku arkay inay kaydka ay ku liidato isku fiicnayn. 3 sano ayay isku barbardhigeen inta ay maaragtay markii meel la dhigo room temperature markii la dhigo sida ay noqoto. Marka 3 sano markastaba waxay dhigeen 3 bilood. Sanadkii koowaad 71% way qasaartay. Sanadkii ku xigay 93% qasaartay. Sanadkii ku sii xigana 96% way qasaartay. 3 bilood markii la dhigay. Marka 3 bilood ma gaari karto meelaha qaar hadday ugu badato 1 bil iyo bar way gaari kartaa haddii siday tahay nidaamkeeda kale iyo bisaylkeeda wax walba loo habeeyo. Laakiin dhinaca kaydka markay noqoto noocyada ugu liita ayay ku jirtaa oo kuma fiicna. Laakiin dabcan waxyaabo kale ayay iyaduna ku fiican tahay. Basashan waxaa la yiraahdaa Red Binoy. Astaamaheeda lagu yaqaano waxaa ka mid ah in midabkeedu uu guduud yahay sidii inta badnaa kuwii aan soo aragnoo kale. Waana nooca indhaha aadka ugu ilmeysiiya. Sidaas darteed faa'iido badan ayay waxay u leedahay dhinaca kaydsiga iyo dhigashada ayay ku fiican tahay. Bisaylkeeduna waxa weeye oo kale dhaqso aad ayuu u fiican yahay waa 90 maalmood. Marka Kenya oo kale abuurkeeda iyo wadamo badan oo tropics-kana waa ka heli kartaa oo lagu iibiyaa abuurkeeda iyadoo weliba hybrid-na waa laga helaa oo ay leeyihiin intaan way ka sii fiican tahay. Cudurrada qaarna weliba waa u dulqaado og tahay faa'iido weeye iyadana oo saa'ida taas. Wax soo saarkeeduna aad ayuu u fiican yahay ilaa 6 tan ayuu gaarayaa halkii hektar. Dabcan sidaan hore u sheegnay haddii qofku ay tahay uu ilaaliyo. Waxyaabaha laakiin aadka loogu ammaano kale waxaa ka mid ah basashan in ilaa 6 bilood qolka caadiga ah lagu hay karo ayaa ka mid ah faa'iidooyinkeeda. Baaritaankan marka haddii aan fiirino oo Taiwan oo lagu sameeyay oo ayakana ay basashii ay baareen ay ka mid tahay Red Binoy oo kale inta la hayn karo 3 bilood markii lagu hayay
room temperature markii lagu hayay 12 basal oo isku barbardhigayeen oo red banoy ay ka mid tahay boqolkiiba 38 kaliya ayaa qasaartay room temperature markii 3 bilood lagu hayay marka 3 meelood 2 meelood camal ayaa ku badbaaday markii room temperature lagu hayay marka baaritaanada kale qaar badan ayaa iyaguna saas muujinaya ka sii fiican marka waa basal haddii noqoto dhinaca kaydsiga ay aad u fiican tahay oo cudurrada qaar waliba si gooni ugu dulqaadan oo markii xataa meel la dhigo sida midkaan la yiraahdo bacteria rotka oo aad u haleeya basasha markii meel la dhigo midaan kalena waxaa la yiraahdaa Adamon Red Ethiopia ayaa aad loogu abuuraa oo basalaha ugu badan oo ay abuuraan ayay ka mid tahay waliba midaan waxay ugu duwan tahay Bombay Red waxay ugu duwan tahay in iyada ay u dulqaadan karto roobka oo haddii roob u yimaado xilliga dhamaadka agteedii waa u dulqaadan kartaa sida taas ay u halowdo kale camal ma noqonayso abuurkeedana Kenya kumaana arkin iyadoo lagu iibinayo laakiin Ethiopia dabcan waa laga helayaa rajaynaya markaas wax soo saarkeedana aad ayuu u fiican yahay wax soo saar fiican ayay leedahay haddii si fiican loo habeeyo bisaylkeeduna waa dhaqso oo 110 ilaa 130 maalin aad ayuu dhaqso u yahay kayd markay noqotona kaydkeeda aad ayuu u fiican yahay ayaa la yiraahdaa waliba Ethiopia oo kale journal lagu qoro markii aad fiirisid markii loo barbar dhigo Bombay Red iyo midaan ay beeraleydu yiraahdaan la wareysto ayaa kaydka ahaan ku fiican inta badanna dabcan room temperature ayay ku hayaan marka insha Allah haddii aan maaragtay dadaalno oo maaragtay dadka Soomaaliyeed isla shaqeeyaan ha noqoto dhinaca ganacsiga iyo dhinaca wax soo saarka oo la istaageero beeraleyda Soomaaliyeed iyo dadweynihii oo wixii wadanka laga soo saaray la iibsado insha Allah way gaari karnaa in maaragtay aan soo saarno cuntooyinka aan u baahana wadankeena inaan ka soo saarno oo waliba basasho kale iyo oo aanan isku halayn in dibaddan la kaga keeno insha Allah taasna waan gaari karnaa marka waxaan rajaynayaa inaad videogan ka faa'iideysateen intaas ayaan ku ekeynayaa videogan insha Allah inta marka video kale kulmi doono assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo beerasho wacan